barasabka xigeenka gobolka Togdheer oo xabsiga u taxaabay 2 oo ka soo jeeday deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer oo lagu magacaabo Beeriyo Nunley ayaa waxa uu ku sababeeyay inay burburiyeen sharciyadii wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo madaxweynaha Soomaaliya ka soo saareen in la sameeyo deegaano cusub odayaashan ku eedeysan inay deegaankaasi ka hirgeliyeen baraago iyo seerooyin ay oodeen barasabka xigeenka gobolka Togdheer uu iftiimiyay in marnaba loo dul qaadan doonin inay tan oo kale ka dhacdo gobolka Togdheer waxaana hadaladiisa kamid ahaa sida tan barasabka xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Yaxay كل هوشن وحقوا تيسين عام كنت تكلم عنه حقني بس كانوا مقعد بير إلى أولي تكون حيث كتجن أما بيرع بيرلي ده قد حوين هلو ده ماشي تكني عم قلت كنا دول بدن قاضي يدل حالفي يبركذا لك خوي مركا وحاولت عليه إنه بركذا سوء عاصمة مركا عم تكنا بركذا بيسنو ده ما ده من اللي نقول إذا مركا أنا قلت حوالي عيا تذكري جينا إنه بكذا بيسنا عاصمة تذكروا سمعنا إنه تقريبا لو كهوش هسبي ويماتين كنت نبي تقوليها بان فريسناي وحري أنا قلت أنا هنا إن أنت كلام دور سلوكين أو طايقو بقطه إن أنا قلت أنا هنا xoolaha laf dhabarta jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah inaan dhulka laga xidhan annagoo danayna in daaftii beeri la kala saaro wixii dambe in laga digtoonaado annagoo danayna ayaan talaabadan u qaadnay kulli talaabada oo ganaax oo aanu saarno intan imka aan dhulkoodii la baabiin karayna way jiraysaa marka waxaanu dadweynaha reer Burco ka codsanaynaa ama ku amraynaaba inay iska ilaaliyaan dhulka daaqsinta ah ee laga xidhanayo xoolaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud wareegtu ka soo saaray wasaaradda deegaanka wareegta ka soo saartay gobol ahaan tiibaan fulinayna madaxweynaha iyo wasaaradda ayaan fulinayna cidna ugu dul qaadan mayno neefka xoolaha in laga xidho cidna ugu dul qaadan mayno in mataqaanaa dhulkii ilaahay ee dadka uu ka dhaxeeyay la kala sheegto oo nin waliba 20 kiiloomitir iyo 30 kiiloomitir socdo talaabo sharci ah ka qaadayna talaabada maanta aanu qaadnay ee 700 qof baan imka ayaanu samako u diray 200 qof baa ku yimid 200 baa xiran 200 ka xiran shantii kale waan baadi doonin oo bilis baan u dirayna waxay taas tahay digniin aan u dirayno Burco cid doonaysa inay xooto ama dhulka gaar u yeelato ayaanu u dirayna weeyaan marka waxaanu ku boorinaynaa anoo baa halkan uga jeedinay Soomaali Channel iyo saxaafadda kale la socotaba in mataqaana ay dadweynaha reer Burco ashimooyinka aan lagu aqoonin ay ka digtoonaadaan dawladuna ay talaabo sharci ka qaadi doonto qofka neefka xoolaha ka xishada meesha Yaxay tani intii loo soo magacaabay ayaa waxa uu noqonayaa talaabooyin kor loogu qaadayo nabadda iyo waliba xasiloonida gobolka Togdheer Abdirsaaq Koronto shabakada caalamiga Batalanis magaalada Burco.